Macalimadu dhalatay dalka Sweden oo asalkeedu Swedish yahay ayaa laga soo duubay muuqaal iyadoo aad ugu qaylinaysa gabdho muslimiin ah oo qaxooti ah xilli lagu guda jiray fasalka waxbarashada ee luqadda Swedishka. Gudaha fasalka waxaa ku jiray wiilal iyo gabdho muslimiin oo qaxooti ah halkaas oo wax lagu barayay. Balse muuqaalkan oo aad ugu faafay baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyay ayaa muujinayay macalimadan Swedishka ah oo aad ugu qaylinaysa gabdhaha muslimiinta ah iyadoo qacanteeda ugu sheegaysa waxa lagu yiraahdo xubinka taranka ee ragga iyadoo markaasi ku sheega afka Swedishka. Hablaha oo aad uga xishoonaya oo aad uga qajilaya waxay sameynaysaa iyo ficilkan ayaa noqotay mid soo jiidatay bulsho aad u fara badan oo aad noogu faaftay baraha bulshada maadaama ay gabdhaha islaamka ee xijaaban ay aad uga xishoonayaan falalka quracan ee ay sameynaysay gabadhan Swedishka ah. Macalimadan ayaa aad ugu qaylinaysa gabdhaha goobta fasalka ee waxbarashada ee ay fagaaraha ee dadku wada joogaan iyadoo xubinta ragga ee taranka gacanta ugu sheegaysa iyadoo ka codsanaysa inay ku sheegaan af Swedish. Kadibna aad ugu sii qaylinaysa gabdhaha iyadoo leh inta in lagayaad halkan joogteen maxaad baranayseen iyadoo waxyaabo noocaasiya aad ugu dhawaaqaysa oo aadna ay habluhu u dhibsanayaan. Gabadh ka mid ah gabdhaha ayaa isku dayaysa inay cabsatay oo ay doonaysa inay ka baxdo goobta laakiin way ka diiday wayna soo xidhatay qolka. Dalka Sweden waxaa barihii ugu dambeeyay aad ugu soo badanayay falalka nacaybka islaamka oo aad u sii xadhkaha goostay xagjiriinta Sweden halkaas oo haatan ay xadhkaha goosteen xagjiriinta waaweyn ee dalkaas. Waxaana muuqata in aysan jirin waxa la yiraahdo xuquuqul insaan iyo in la qadariyo xuquuqda aadanaha oo ay tahay meesha lagu tunto qof walbana uu indhihiisa ku arki karo waxay sameynayaan Sweden iyadoo inta badan aan ognahay inay aad iyo aad ay ugu badan tahay ka qaadashada carruurta dalkaasi ee qoysaska islaamka ah. Jag hör inte vad du säger.